وحرونتا golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana hortuban ciidamada booliiska Soomaaliya waxay ciidamadu ka biyadiideen in gudaha howlka xarunta golaha shacabka ay ku shiraan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwii dhawaan sheegay in xilka qaadis ay ku sameeyeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ciidamada booliiska ayaa diiday in xildhibaanadu ay gudaha galaan hase ahaatee xildhibaanada oo soo batay isla markaana go'aan ku gaaray inaan dib ugu laaban doonin xarunta golaha shacabka ayaa markiiba gudaha u galay markii xildhibaanadu gudaha ay galeen kadib ayaa waxa ay fariisteen kuraastii xarunta golaha shacabka waxaana ay sheegeen inay sameynayaan ama ay u cadeynayaan in la ansixiyo guddiga qabanqaabada doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sida iyagu ay sheegeen waxa goobta soo gaaray xildhibaano diidan in guddi doorashooyin la sameeyo isla markaana taageersan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana markiiba jawigu u noqday in xildhibaanadu ay gacanta iskula tagaan isla markaana qaarkood dhiig laga daadiyo inkastoo xaaladda sidaasi ay ahayd ayaa mar qura waxa goobta soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka Soomaaliya Casaawe kaasi oo sheegay inuu shir gudoominayo isla markaana uu diyaar u yahay in la ansixiyo guddiga qabanqaabada doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya laakiin markii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo mikrofoonka qabsaday ayaa mar qura waxa goobta soo galay xildhibaanadii diidanaa xilka qaadista xildhibaanadan kale ay sheegeen inay ku sameeyeen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana mar qura goobta ka bilowday dagaal foolka fool ah gacan ka hadalna la iskula tagay dhiig badanna halkaasi uu ku daatay intaasi kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu cod gacantaaga u qaaday xildhibaanadii fadhiyay waxaana uu weydiiyay in la ansixiyo guddiga doorashooyinka inuu ansax yahay iyo in kale waxaana dhammaan ay gacanta u wada taageen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo qayb galay kulankii maanta inuu ansax yahay guddiga qabanqaabada doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya حسن شهادة إنك الله يقابل وحن مدحابنا جودي دورشة الدنيا أنا لو قلت لي واجب كي يصير الوضع كسيدي الصدرات أحد القرن كويه وقل لي هاي لابدي نلاقي السوري الدنيا أو ماشى كف حي الدنيا بغيرنا أنا سفر كريم أنا يمين سبع البرلمان كواين يريدوا الدنيا وكنا نجاوزي دورتين ودور محمد وعن كلامه في برلمان كالدكتور كيسا هذا العلامات guddigii doorashada inta ogol gacanta ha taagto inaan magacaabo inaan la magacaabo oo soo magacaabo guddigii doorashada gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ogolaaday 287 xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaana gacan ka hadalkooda maanta waxa uu ka duwanaa kuwii hore waxaana dhiig fara badan oo daatay la arkayay isaga oo yaalo gudaha xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya dhiigaasi oo ahaa mid ka daatay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee gacanta iskula tagay
lamana uga mustaqbalka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ku dambeyn doono maadaama gacanka hadalka uu noqday mid isdaba joog ah isla markaana maalin walba ay fadhi yeeshaan gacanta isula tagaan inkastoo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay wili ku adkeysanayaan in xilkii ay ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa haddana la ogaan karin waxa ka soo bixi kara dhinaca kale ee taabacsan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhinacooda ka soo horjeeda xilka qaadistaasi Maxamed Maxamuud Timcade